Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in gabadhii maqneed ee Amaal Nuur Cismaan maalin ka hor laga dhoofiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana loo qaaday dalka ay dhalashada ka haysatay Denmark kadib markii dalkaasi ay hooyadeed ka soo waday si dhaqan celin ahna ay u keentay Muqdisho. Gabadhan dowladda Soomaaliya u gacan gelisay dhigeeda Denmark waxay maalmo ka hor si xoog ah uga baxsatay goob lagu xanaaneeyo dadka caasi waalidiinka ah ee ku taal degmada Hodan laguna magacaabo Daarussunnah iyada iyo gabdho kale oo tiro ahaan gaarayay ilaa 7 ruux. Hooyada dhashay gabadhan oo lagu magacaabo Amran Xalane ayaa sheegtay in gabadheeda ay afduub ahaan u haystaan qaar ka mid ah ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya kadib markii ay u gacan geliyeen gabdho kale oo isla goobtan dhaqan celinta ah ay iskala soo baxsadeen. intaa kadib xiraalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ka jawaabtay eedo hooyada gabadhan ayaa sheegtay in gabadhan baadi goobkeeda lagu gudo jiro afduubka gabadhana rag lagu eedeeyay ka dambeeyeen wax dambi ah lagu waayay. maalin ka hor taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo la hadlayay TV-ga qaranka ayaa sheegay in ciidanka booliisku ku guuleystay in gabadhan iyadoo bad qabta ay gacanta ay ku hayaan ciidamada booliiska. Amaal markii booliisku heleen lama aysan wadaagin xogteeda qoyska gabadha sidoo kale lama tusin mana la hadalsin laakiin waxay u gacan geliyeen safaaradda Denmark ee Muqdisho sida la sheegay waxaana kadib loo qaaday dalka laga keenay Denmark sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka. agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa xaray gurigiisa ugu yeeray waalidiinta gabadhii la weysanaa ee Amaal Nuur Cismaan wuxuuna qoyska u sheegay in Amaal ay ku wareejiyeen dowladda Denmark. qoyska ayaa sheegay in afayeenka ugu hanjabay inay ka haraan arrinta gabadhooda oo aysan warbaahinta la hadal laakiin aysan awoodin ay u sheegeen inay ka aamusaan arrintan ilaa ay ka helaan xogta gabadhooda baxsadka ah. waa qofkii labaad oo ay u dhiibto dowladda Soomaaliya dal shisheeye hase yeeshee waxay tani kaga duwan tahay inay baxsadka ahayd gabadhan dowladdu ay dhiibtay waalidkeeda iyo dhaqanka dalkeeda.